madaxweynaha maamul goboleedka Khaatumo Axmed Cilmi Cismaan Axmed Karaash oo la hadlayay telefishinka caalamiga ee Somsat xilli uu ku sugnaa geedka Barda Khaatumo ee gudaha degmada Taleex ayaa waxa uu ka hadlay xaaladda guud ee degmada Taleex iyo waliba sidoo kale dagaaladii maalmihii ugu dambeeyay ka dhacay duleedka degmada Taleex waxaana uu madaxweyne Axmed Cilmi Cismaan Axmed Karaash ugu horeynba tacsi u diray dhammaan dadkii waxyeeladu ay ka soo gaadhay dagaaladaasi isagoona geesta kale ku eedeeyay dagaaladaasi ay ka dambeeyeen waa sida uu hadalka u dhigay mas'uuliyiin ka tirsan maamul goboleedka saaka waxaan kala hadlayaa warbaahinta iyo dadweynahaba geedkii Khaatumo kuwa la hashir baanu qabanaynaa dadka kullu goynayeen waanu nabad qabnaa waxaanu nimi 2 casho ka hor ayaanu geedkan nimi waxaa dhacay waxaan maxay tahay nasiib darro ah runtii khasaara ka dhacay halkan mid aan lagu talagelin waliba tacsi baan noo daranaa waxa la waxay ku geeriyooday iyo wixii magaranaysa ku dhaawacmay Ilaahay caafiyo wixii ku geeriyoodana Ilaahay dadkoodana samir yeeman ha ka siiyo iyagana jannadii raxmo Allah siiyo talagal ma ahayn sida wuxuu dhaceen waanu faahfaahin doonaa laakiin waxaan ka hadlayaa wixii meesha ka dhacay waxa sabab u ah Cali Khaliif iyo ragku heliya ayaa sabab ah dadka masaakiinta la gooyay been u sheegay 10 goor baan uga dignaa waxaan shir waa la qabanayaa hadii aan la yiri Taleex baana lagu qaban doonaa waxaana qabanaya dadkii loogu talagalay oo maamulayaasha maamuli lahaa oo ah madaxweynayaashii Khaatumo sida ninka la Binde iyo aniga Axmed Karaash cid kale oo waali iyo ismaqiiqnimo ma qaban karto haddana ma qaban karto ayaan leeyahay waxaabase u daran ninka Charleska xornimada ka soo ilaa Yurub iyo Mareykan iyo meel walba soo maray oo yiri shir baan ku qabanayaa oo dadka la gooyay khasaaraha iyo dhibaatadaana geystay haddana wali wadwada waxaan uga digayaa inaanu mar dambe dadka masaakiinta dib kale u geysan dhibintii hore ha ugu filaato shir uu qaban karo iyo halkan wuxuu ka qaban karo midna ma jirto sidaas ayaan ku wargelinayaa shacabkan waxaan leeyahay wariyaan leedin waalin muddo dheer baanu ka digaynay wax noocaasa yaan leedin waalin nabadgelyada iyo xasiloonida hal la ilaaliyo haddii aad ku roon yahay dhibta nimanka ka shaqeynaya wixii horeeyay wax ku darin aad iyo aad baad u mahadsantihiin waxa ugu maqaala wuxuu yiraahaa ninka soo duulay indhasheer iyo kuwa soo diraya waan ku soo noqonayaa shir baan qabanaynaa waxaan leeyahay war kuwa iyana waa ku lugooyeen ku soo diraya adiguna waxa fiicnaan lahayd inaad cagaha dhulka ku adkayso halkaana waad ka carartay laamiga adoo soo dagaaltay Taleexna waad ka carartay oday baad ahayd oo cidina wax kuma samayseen kun yar meeshii aad ka timaa lagu celin lahaa laakiin ma aha inaad marba fulq kaga tagto meel oo wax ku soo go'do oo dad kaga cararto haddana waxaan ku sheegayaa indhasheero ma iman kartid halkan waxana kama qaban kartid aan la isla ogolayn maraan wax ka weydiinay madaxweyne Axmed Cilmi Cismaan Axmed Karaash halka uu ku sugan yahay ama uu ku og yahay madaxweyne Maxamed Yuusuf Jaamac Indhasheel oo kamid ah golaha madaxtooyada Khaatumo kadib dagaaladii ka dhacay duleedka degmada Taleex waxa uu yiri sida tan waad mahadsantahay waa su'aal wanaagsan waxa weeye horta geedka sawirkiisa geedkii aan hoos fadhiyaa anigu Khaatumo shirka lagu qoraa beenahaas waa been ay sheegi jireen oo oran jireen shirki waa socdaa dadka ay ku baaran jireen iyo islaamaha ma aan reensanayo inuu beentii ay shub jireen u shubo baabuurtii la socotay fiidkii waxay ku galeen hadda saaka intii badneed waxay galeen Buuhoodle oo dawacaan weeye say qudhiisa waxaan maqlayay warbaahin internetyada iyo lagu qorayo waxa lagu soo dhaweynayaa Buuhoodle maanta balantuna saas ah inuu fiidkiisu ku galo Buuhoodle waxa loo wardambeysay meesha la karin dabayl weyn saakana inuu ka sii cararo ayaanu balantu ahayd
isna waxay ugu maqlaan inuu yidhi taleex baan joogaa ummadda waxaan u sheegayaa beenta noocaasa 2 sano laydku waday oo nimankaasi ku waday inay ka waantoobaan madaxweynihii khaatumana anaa hadda ah iyo ninka la yiraahdo Binde ayaa ka shaqayn jiray oo jooga ninkaasi dool buu ku yimi haddana go'aamadii aanu gaadhno sidaan horeba u sheegnay ayaa ka socon doona Abdiraxmaan Jaamac Xashi Abdiraxmaan Wadani Somsa TV Garowe